السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wanaagsan, isbuuc wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan. Maasha Allah, waa anigoo Sakariya Ciise Cusmaan ka hadlaya halkan FX Soomaaliya review casharkii isbuuclaha ahay muraajacada suuqa insha Allahu tacaala. Isbuucan waxyaalo badan baa la filan doonaa. Kii horena maasha Allah wax badan baa isbedelay, qiimooyin badan sida poundka, euroda, dollarka maasha Allah. sidoo kale gold oil aan ka marnayn ayaga laftirkooda qiimo aan la filanaynin gold inuu isbedelay sidii la filanayay si kasii fiican baa la arkay maasha Allah. haddaan ku bilaabo muraajacada maanta USD Canadian insha Allahu tacaala. Last week areada aan ka daydayeynay waa kana. In this area haddaad aragtaa laba jeer inuu soo laabtay oo ku laabtay mar kale after that qiimihii uu jibiyey. So ma aragtaan marka aan maasha Allah qiimahada waxaan sugnaa waxa waa inuu resistance-gii uu jibiyey inuu support ka dhigto qiimahada aragtaan downtrend uu ku jiray qiimaha downtrend uu ku jiray aad aragto inuu soo dhacay lagu celiyo resistance uu soo dhacay marka resistance lagu celiyo kadib waxa uu soo laabtay laakiin qiimihii uu jibiyey. So marka waxaan rajeynaynaa 1.2990 ilaa 1.970 areas in USD Canadian supportiga hadduu xoojiyo insha Allahu tacaala in kor aan ka fiirino qiimihiisa. waxaan kaloo isagana aragnaa inaan fiirino USD yen oo isagana qiimihiisa last week ay isbedeleen maasha Allah sida aan filanaynay si ka fiican inay noqotay. qiimihii waa kana last week qiimihiina waxay ku laaban doono den uu soo jibin doono trainka aad aragto qiimihii uu kasoo jibiyey den qiimaha aad aragto inuu soo jibiyey supportive wax yar oo celiyey den qiimihii kor loo celiyey moving averagekii uusan ka dhex bixin la soo celiyey. linekan bluega aad ujeedaan waa daily buu ka imaanaya trainkan. lineka madowna waa trainka aan iskugu xiray 1 2 3 here aad aragto saddex support inuu xijiyo qiimaha markii tomorrow morning markii suuqa la furo waxaan rajeyn doonaa hadduusan kasoo bixin inuu ceshto qiimaha up to here in USD yen by laga faa'iido insha Allahu tacaala qiimaha dan lasoo yara celiyo mar kale insha Allah. news baan xitaa waa u jira aan fiirino sidoo kale euro USD isagana last week isagana wax fiican oo isbedelay oo qiimahaas oo kor aaday sida dollarka maadaama uu soo dhacay qiimaha mar walba ka filanayso in lacagaha dollarka kasoo horjeeda inay kor aadaan ayagana. last week waa kana haddaad aragtaan in qiimihii meelahan areadan baa lagu furay wax yar baa waa lasoo rideedana qiimihii korba u socdaa. haddii Fibonacci retracementiga aad saarto qiimaha waxaad aragtaa si toos ah in 0.5 oo qiimaha uu taabtay si toos ah haddaad u fiiriso 1.1612 qiimahana isagana uu tagay 1.16114 qiimahaas isagana 0.5 qofkii xitaa areadan ku sugayay maasha Allah 1.1640 isaga laftirkiisa another sell limit hadduu ku sugayay waa opportunity fiican qofkii buy raacayna maasha Allah. so qiimaha hadda waxaan sugnaa maadaama laga soo celinayo 0.5 in this area supportigana aad ujeedo 1 2 3 4 haddii uu celiyo areadan oo qiimaha aad ujeedo 4 saac candlekan aad ujeedo Polish pin parkan haddaad ujeedo hadduu ceshto uusan kasoo hoos bixin in qiimaha areas ilaa up to here inuu tegi doono waan rajeynaya insha Allahu tacaala. qiimaha euro dollarka hadduu alla idmo waxaan kaloo fiirinaynaa euro Australian oo isagana last week isagana isbedel fiican uu ku imaaday. euro Australian
sidoo kale iyo Australian haddii aad fiiriso last week in this area 8 October qiimaha areadan baa lagu furay meelaha haddaad aragto areadan baa lagu furay in this area maasha allah qiimaha meelahan baa lagu furay oo resistance waa u soo dhacay supporti buu imaaday 1 2 3 4 up to here another pie waad ujeedaan qiimaha aad aragto in xaraam yar uu sameeyay dan bullish aad aragto candle fiican markaas waa qiimaha pie waa laga faa'iidaystaa then resistance mar labaad buu celiyo aad ujeedo bearish oo ku cadeynayo qiimihii candlekii hore candle ka weyn aad aragto inverted hammer ama pin bar bearish aad aragto in qiimihii rejection lasoo siiyey meeshii resistance qiimaha aad aragto si fasiixa inaad sell area aad ka gasho maasha allah uptrend buu ku jiraa 1 2 3 wax yar buu kasoo baxsaday inuu celi baa rajeynayna haddii qiimaha oo hadda downtrend uu ku jiro ay idinka bixday gaas waa kii aan ku calaamadiyay downtrend-kan haddii uu celi uu ku socdo waa sidaan buu u yaalaa saacadaha yaryarka sidaan buu u yaalaa aad aragtaan qiimihii support wax yar buu ka baxay fake breakout isla within next 1 hour waa ujeedaa pullishkan aad ujeedo xooga badan inuu qiimihii kor u celiyay then trainkii buu marka la celiyay waa la soo celiyey qiimaha waxaa rajeynaa up to here 1.16150 inuu celiyo then qiimaha inuu areadan ku laabto insha allahu tacaala haddii qiima areadan uu ku laabto ama Tuesdayda meeting baa jiro Australianka I think in qiimahan wax badan uu isbedeli doono isagana insha allahu tacaala qiimaha inuu wax badan isbedeli doono halala socdo aan fiirino pound USD isagana sidoo kale sorry pound USD isagana wax badan baa isbedelayo last week aad aragtaan buygi aan ku jirnay isagana maasha allah inuu si fiican u socday in this here areadan bay ahayd meelahan last week mar aan qiimaha aan kaga jiray 1.360 areas oo haddaad aragto qiimahan downtrade-ka wuxuu ka baxay balse the other resistance then qiimihii mar kale inuu kula laabtay fake breakout uu sameeyey then qiimihii si toos ayuu ugu cadeeyay inuu qiimaha kor u socdo maadaama ilaa 0.38 rejection laga soo siiyey 5 marka laga soo celiyay 61 uu dhaafi waayo qiimihii 78 uusan gaarin laakiin 61 uu kula laabtay wax yar uu dhaafay then qiimihii inuu kor aaday aad aragto in the next haddaan dhahno ama next week waxaan rajeynaynaa insha allah in qiimaha areadan laga celiyo oo moving average-ka support oo ka dhigto oo ku aadan 0.38 qiimaha then ilaa inuu dhamaystiro 1.33 inuu dhamaystiro baan rajeynaa insha allah waxaan kaloo fiirinaynaa isagana last week ilaa 2 maalin gudaheeda ama hal maalin iyo bar gudihiisa pound yen uu ku sameeyey ilaa 4 wareeg oo qiimihiin u dhigma 100 pips areadaas oo aad aragto 8 October waa kana markii suuqa areadan baa lagu furay sell 1 2 3 4 5 ilaa 5 round last week waa uu galay labada maalin u dambeysa hadda aragto 1 2 3 inuu qiimihii uu si fiican uu sameeyey waxaad arkaysaa 1 hour-ka oo kale haddaan geeyo waa 1 2 3 4 maasha allah ilaa I think 3 inay tahay 1 2 1 2 3 4 5 so qiimaha marka haddii aan pound-ka isaga dhaqdhaqaaqis aad badan yahay welibana loosaska waxyaalaha keena ama signalka sometimes chartka ku ciyaaro buu ka mid yahay waan ixtiraamin sometimes waa u ixtiraamaa laakiin
dhinaca kale buu uga gudbayaa waayo waa high volatile waaye waa dhaqaaqiisna aad u badan yahay sidaas darteed marka looska iyoba waa la taaban karaa loosaskaaga haddaad aragto trainkan 1 2 3 support qiimihii waad aragtaa in lagu xiray bullish suuqa tomorrow haddii oo qiimihii kor sii wato I think 149 inuu gaari doono ilaa 149.92 inuu qiimahaas gaari doono insha allah maadaama laga soo celiyo 1 2 3 4 5 haddana supportiga laga soo celiyo 1 2 3 4 afar jeer so marka qiimaha haddii marka wuxuu caddeyn doonaa qiimaha inuu meel u dhici doono ama inuu soo jibin doono haddii intuu soo jibiyo qiimaha insha allahu tacaala sell stop in here si fiican profitka koowaad 14560 oo ah 100 pips kadib qiimaha inuu korkoo yara laabto after that qiimaha ilaa 143 inuu qiimaha oo imaan hadduu alle uma insha allah so haddii uu celiyo supportiga oo qiimaha oo si fiican oo noo tuso tusaale short termko kale haddaan fiirino buy weeyaan hadduu alle idmo aad ujeedo qiimaha ilaa 148.30 haddii mar kale inta uu kusoo laabto qiimaha another buy insha allahu tacaala pound switch isagana aan fiirino last week isagana aan ka faaloono maadaama resistance hor uu jibiyey another resistance loo dhow yahay in qiimahaas laga faa'iido isagana insha allah so pound switch isaga waa kana sidaan u yeelaa resistancegii waa u gaaray si resistance so qiimihii waad aragtaa inuu soo jibiyey trainkan baan ku xisaabtamayay maasha allah welibana wuxuu soo jibiyey friday buu soo jibiyey qiimihii waxaad aragtaa inuu la tusay inuu hoos u socdo pound switch haddii 1.090 uu gaaro bearish haddaad aragto insha allah qiimaha ilaa 1.2880 insha allahu tacaala ilaa 85 hadduu alle idmo pound switch gold haddaan fiirino last week wax fiican buu sameeyey oo qiimihii uu joogay 8 October in this year wax yar furo qiimaha inta buu joogay areadan buu joogay sorry meelahan qiimihii aad aragto in meeshaan resistance uu soo celiyay qiimihii si toos buu usoo sell buu ku furay bearish buu ku furay qiimihii waa la geeyey isla maalintaas then qiimihii waxaad aragtaa inuu mar kale uu sameeyey support ilaa triple bottom inuu sameeyey somaada garan then markaad aragto 1 2 3 in qiimihii korsocod uu sameeyey moving averagekii oo muxuu ahay supporti ka dhigtay then qiimihii aad aragto maanan la filin inuu qiimaha areadan uu dhaafo 1205 ilaa 1208 balse qiimaha aad aragto inuu ka dhex baxay maalinta khamiista ahayd inuu ka dhex baxay qiimihii then maasha allah waad aragtaa oo soo socdaa do not buy gold by garaining hagadanin gold ilaa oo ka imaado ama ilaa fasiix oo naga tuso 1208 ilaa 1210 inuu imaado ilaa xitaa waxaa sometimes analysisyada dadka qaar waxay sheegayaan 1205 inuu imaan karo then muxuu ahay bullish ilaa 1239 ilaa 1235 inuu gaaro qiimaha sababtoo ah Fibonacci levelka haddaad ku arko 0.38 1210 buu ku aadan yahay ilaa 1.12 so 0.5 wuxuu ku aadiyaa 1205 so marka qiimaha yaan la gadanin yaana la gadin soomaaliga marka qofkii 126 ilaa areadan kale ka soo raacay intrigiisu kor uu soo dhigan kara si haddii xitaa qiimaha maadaama qiimaha socodkiisu wataa waa buy weeyaan balse hadduu qofku meelaha hoose ka geli hadduu meelaha ka galo stop losskiisu waa inuu areadan oo kale amba lot yar uu ku gala qiimaha losskana uu
meelahan hoose usoo dhiga si haddii uu soo laabto supportiga u ceshto dan qiimaha uu kor u laabto hadduu alla yimo insha allah gold. waxaan kaloo fiirin doonaa oilka isagana oo isaga last week isagana uu down u ahay qiimaha oilka ay soo dhaceysay, taasoo aan sheegnay haddii qiimaha uu kasoo sumaro trendka in sell uu yahay, haddii qiimaha uu cishtana in buy la dhaho. waad aragtaa qiimihii sida idinkugu sheegay last week in qiimaha haddii eridan supportigan uu cishan waayo oo soo dhaafo then qiimaha in buy la dhaho, sell la dhaho. haddii qiimaha muxuu ahaa uu cishto toos u socdo waa buy. qiimihii waa kusoo baxay, waad aragtaa supportigii 7293 muusa soo gaarin laakiin 7310 areas buu soo gaaray. qiimihii waa la celiyey, trendkii si fiican u qabsan wax yar, then waad aragtaa in qiimihii si toos oo cadal loo soo riday. then trendkan kale aad aragto 4 hourska ilaa aad dailiga xitaa aad ka aragto in qiimaha uu imaan karo. hadda wuxuu haystaa trendkan 4 hourska 1 2 3 support here, saddexdan support oil waa marka waa buy waa insha allah ilaa in this area 7284 baan rajeynayna inuu soo jibina waa suurtagal, balse mar walba riskiga aad qaadanayso ha yaraado, take profitkaaga wato. haddii qiimaha inta eriyada uu cishto insha allahu tacaala the next targetkeena wuxuu noqon doonaa oo isbuuca soo socda ah oo bridge ka bilaaban doono 69.20 areas inaan insha allah sell aan kaga faa'iidno hadduu ay walow ay jirto xitaa isbuuc leeyahay reportkii soo bixi jira oilka in lasoo saari doono hadduu alla insha allah. this week wuxuu ahay waa negative buu ahay, sidaa darteed marka qiimaha waa usii dhamaystirtay 100 pipsna maasha allah qofkii ka qabtayna aad buu uga faa'iiday. aan kusoo xiro chartkeyga u dambeeyey oo ah Australian USD last week isagana isbuucii u dambeeyey kaasoo aan ku sugeynay area trendkeena oo aan rajeynayna inuu xushmeeyo balse uusan soo gaarin, oo aad aragto inuu ka laabto 0.045 areas laga celiyey. qiimihii in laga celiyay 10 October lagana furay areas soomaalida garan. qiimaha aan ku sugeynay 0.025 ilaa 20 areas qofkiiba ku sugayay muusan soo gaarin, marka lagu imaaday laakiin waa laga celiyay 45 areas laga celiyay 20 ilaa 25 pips. waa marka orderkaas waa qofkii galay waa maasha allah, qofkii kalena waa iska masaxaya. soo qiimaha haddii areadan uu celiyo support uu celiyo supportigana aad inta ujeedaan haddii uu celiyo qiimaha waxaa leenahay polish ilaa appears 0.200 kaasoo ku aadan qiimaha 130 pips ilaa 125 pips insha allahu tacaala Australian USD. I hope waxaan rajeynaya inaan wax badan ka faa'iiday. isbuucan waxaan rajeynaynaa ilaahay ka baryaynaa inuu isbuuc nooga dhigo isbuuc khayr badan, haddii shar inoogu jirtay inuu ilaahay sharta naga duwo. waad ku mahadsantihiin daawashada videogan. subscribe, like, share and comment. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.